بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaa si alla socotaan ba ka dhacay masiibo oo daadad iyo roobab iyo fatahaad gobolada Soomaaliya kamid ah sida gobolka Hiiraan Bardaale iyo gobolada Gedo haddana cabsi kale ka badan ayaa jirta oo in wali daadadkaasi ay sii fatahaan cabsi ayaa jirta saadaradeed shirkadda Hormuud guddiga ganacsiga Jambar of Commerce waxay isku taxallujiyeen in ay abaabulaan muxuu ahay ganacsatada Soomaaliyeed shirkadda Hormuudna saas ayay gogol ugu dhigtay maanta hotel Shamo oo 200 oo kun ay Hormuud ay baahaday ay bixisay taasoo si degdeg ah insha Allah lagu gaarsiin doono ummadda dhibaatadu ay ku habsatay taasoo ah emergency koobaad ee loogu talagalay in wax looga qabto ummaddaas ku barakacday fatahaadaha gobolka Hiiraan iyo Bardaale iyo Gedo dabcan shirkadda iyo shacabka Soomaaliyeed waa isku dan oo isku nafti ka gooday shirkadda waxay u tahay naxtin u tahay guriga biyo ka qaadaan waxay u tahay naxtin bay u tahay shacabkii laga dilana naxtin bay u tahay shirkaddu waa shirkad shacabka Soomaaliyeed iska leeyahay una adeegta